إلهي ومهد له سقروح بدن oo guuli ay ku dheehan tahay inuu soo gabagabeeyay madashii kulankii shanaad ee madasha garsoorayaasha oo 28 iyo 29 Arbacada iyo Khamiis madashan inooga socday marka koobaad waxaan rabaa mar labaad inaan mahad celiyo odayaashii ama guddigii qaban qaabadeeda lahaa ee waqtiga iyo dadaalka iyo juhdiga geliyay inay sida tan quruxda badan ay noogu qabsoonto inooguna soo gabagabowdo mar labaadna waxaan rabaa inaan mahad celiyo dadkii madashan bilay ee qurxiyay ee ku bilay aqoontii iyo waaya aragnimadii iyo cilmi baadhistii ay halkan inoogu soo bandhigayeen muddada labada maalmood runtii waxaan isleeyahay waxay ahayd madashii ugu xiisaha badnayd madalihii aynu qabanaynay waxaana keenayay mowduucyada laga hadlayay iyo sida loo soo diyaariyay iyo sida ay uga turjumayeen waaqica iyo xaaladda aynu maaragtay ku shaqaynayno runtii waxaan isleeyahay wax badan baa laga bartay marka laga soo bilaabo arrintii ugu horreysay halkan lagu soo jeediyey iyo doodii iyo wixii tooska u taabanayay shaqada aynu qabanay la xidhiidhay halkan lagu soo bandhigay arrintii la xidhiidhay xukunada iyo asbaabtooda iyo manduuqa iyo xukunka laftigiisa waxa go'aanka ugu dambeeya uu noqonayo iyo xukunadii ay maxkamaduhu soo saareen ee halkan tusaalaha laynagu siiyayno halkan ku aragnay waxa weeye muraayad aynu si fiican iskugu eegi karno aynu iskugu daawan karno dabadeedna meesha aynu ka aragno meesha u baahan in la nadiifiyo aynu si fiican uga nadiifin karno marka muraayadaasi layna hordhigay aynu isku daawannay waxa weeye qofku haddii uu wejigiisa soo dhaqay soo foodhaqdo soo qurxiyo timaha soo shanlaystay iyo haddii kale si fiican buu halkaa uga arki karaa markaa sawir fiican bay noo ahayd sawirkaa markaa wixii aynu ka dhex aragnay haddii aynu nadiif ahayn aynu qurux badnayn oo timaheenu shanlaysnaayeen oo wejigeenu dhaqnaayeen soo kareemsanay waxa weeye waa halkaa aynu ka wadno haddii kale u baahantay waxoogaa inaynu meeshaa ka saxnana waxaynu u baahanay inaynu halkaa ku noqono baasha aynu si fiican aynu isku eegno laynoo soo hordhigay waxoogaa meesha iyaduna u baahan in aad iyo aad loo eego waxay ahayd qaybtii ka dambeysay oo runtii shalay iyadana aynu ka wada hadalnay meeshaasna waxay u baahantahay waa halka u baahan inaynu aad iyo aad ugu noqono oo maxkamadaha degmooyinku ay mas-uuliyad weyn iska saaraan oo ay iska hubiyaan oo iska xaqiijiyaan waxa ka soo baxaya uu noqdo wax wanaagsan oo sharciga waafaqsan oo danta cadaaladda u adeegaya oo isagana magaxumo iyo mas-uuliyad darro iyo dembi aan midna u soo jeedin guddoomiyaha iyo garsooraha iyo kaaliyaha maxkamadda fadhiya talaynaga rabaa waxa weeye waa taas weeye arrinta aadka u xiisaha badnayd waxa weeye arrinta ugu dambeysay oo barasho laftigeedu ahayd oo garsoorayaxii halkan inoogu soo bandhigay la xidhiidha waxa loo yaqaana cyber security waxay noo sheegay in ereyga cyber loo waayey erey Soomaaliya sharciga hadda la diyaarinayo lagu qoray cyber ama amniga cyberka macnaheedu waxa la xidhiidha dunuubta la xidhiidha computerka iyo internetka yani waa aqoon runtii fiican baa inooga kordho waxay noo muuqatay inaan wax aqoon u lahayn dambiyada lagu galo internetka iyo sida ay u dhacaan iyo sida loo cadeeyo iyo waxyaabaha looga baahan yahay waxa isla dhamaantii waxaynu ka baranay 10 baynu ka baranay laakiin taas waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaynu tallaabooyin badan qaadno oo inaga laftigeena isweydiina systemka aynu isticmaalno iyo qaabka aynu u shaqeyno siyaasadaha iyo waxaynu uga baahannahay inaynu la nimaadno siyaasadahaasi waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaynu tababaro abaabulo oo qof walba oo isku day bal inuu wax ka barto maadaama maanta adduunyadiiba ay u guurtay dunidan technology-ga ku xidhan marka qofka isaga naftiisii ayaa xataa khatar gelin kartaa institutionskii iyo hay'adaha aynu ka shaqeynayo shaqadeennii ayay khatar gelin kartaa markaa runtii waxay nagu hagaysaa inaynu tallaabooyin badan oo kale oo muhiima qaadno arrintaa runtii halkan waxay ka baraarujiyey iyaduna muhiimka waxa weye xeerarka la samaynayo xaqiiq weeye xeerarka hadda la sameeyo intooda badani waxay ku salaysan yihiin dhismaha hay'ado
doodii ka horeysay doodan ee laga hadlayay ka dhalanaysay mas-uuliyaadka dambi iyo madani tusaale ahaan oo kale intaynu doodaasi socotay waxaa laga soo diray xeerka korontadu kaliya wuxuu ka hadlayaa hay'adda korontada iyo dhismaheeda iyo mas-uuliyaadkeeda iyo doorka wasaaradda iyo doorka wasiirka iyo doorka agaasimaha iyo doorka laakiin dunuubta ka dhalanaysa laguma sheegin kuwa kan uu ka mid yahay cyber security iyo kuwa kale la midkiina iyaguna waxayna tusayaan mas-uuliyiinta hay'adaha dowladda jooga waxa ugu weyn ay ka shaqaynayaan sidee baa hay'ad loo dhisaa laakiin wixii la xidhiidhay iyo dunuubtii ku xeelayd iyo falalkii dhacayay sidee baa looga hortagayaa ama hadhow loogu ciqaabayaa cidda dembi ka gasha waxay u badan tahay inaan la isweydiin marka arrintaas waxay u baahan tahay in lagu baraarugo oo shuruucda keliya aan laga fikirin sideeba hay'ad u asaasaanee laga xisaabtamo waxa ka muhiimsan ee ah dunuubta ka dhalanaysa khatarta amni dhaqaale bulsho ee ummadda ku leedahay ka hortagooda iyo sida loo maxakamadaynayo iyo sidii loo cadaynayay intaba runtii arrimo aad iyo aad u muhiim ah madashana markaa waxaan isleeyahay madal waxay aad iyo aad u xiiso badan maskaxdeennana runtii si weyn u carisay inaguna dhiirigelinaysa inaguna hogaaminaysaa tallaabooyin kale aynu qaadno dowladda qaybaheeda kalena aynu ku wacyigelino waxaa runtii meel madasha tan inooga soo baxay waxaynu ku xisaabtami doonaa wixii halkan inooga soo baxay inaynu ku camal falno waanu tallaabooyin kale insha allah kasii qaadno waxaynu maanta halkaa kusoo gegeysanaynaa madasheenii dhammaan cid kastoo kasoo qayb gashay cid kastoo ka shaqaysayna aad iyo aad baad mahadsantihiin madasheenniina waa inoo xidhan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu